أنا ماشي صورة أديك ميها محاك سوعلي هيا ويلو ودويناتي بلادي قفوين بعد نقطي مهمة ماشي عندان كالها الله هooyada maan u sheega waxaad ka qarnisay dhowr sano ka hor mise dee oo maxaa sheekadaad ku keentay balan igama taqaadina cidna wad u sheegay imika maxaad hadalkaa ku keentay oo inaad igaga hadalka maxaad ku keentay ii sheeg igama daraacna kuma sheegay waad iga qoslaysa runtii wallaahi da ina aniga gursatid baheed imika saacadan inaa gabadha aad la joogin baheed marka maxaa iska galay gabadha iyo sirta aniga adiga naga dhaxeeyay cidna u sheegin is oran marka maxaa isku keenaya madaxa xanuunaya maxaa dhaxay meeshan awdiga wadada socday oh my god marka shil baan galay oh my god hooyadii haddii ogaato way murugoon doontaa mayaha ka baqan hooyada ma ogaanayso aniga keliya taa ku og lambarkaaga dhinaca sareysan baa la soo wacay anaa la soo wacayd oo cidna ma ogaan mahin hooyadii xitaa ma ogaan alxamdulilah wax moodaynay ogaato haddii ogaato inaa shil galo hooyadii way xanuunsan inaan ka qariyo waa hooyadii inaan wax yar soo gaaro ma rabto madaxay xanuuna dhimalahan hooyada aad ka baqisin inay ogaato anaa noo ilaalinin cidna ma ogo aniga keliya taa bas ayaa og marka niyada khayr sheeg cid kale ma ogaan doonto way haddaba cidna u sheegin hooyadii ma rabo inay naxdo way haddaba cidna uma sheegayo waa balan aan kaa qaaday waa adiga saas iga yiraahdo iga horta cidna ma ogaanayo midda kalena maxaad arrinta maanta iigu wacday waxaa mooday wax muhiim inaad ka hadlaysid oo saas darteed ku yimid sirtana kan sanada kasoo wareegtay sanada mayna 100 sanana may kasoo wareegta war aniga maahay waxaan ku jeclaa oo hooyadanay ka gurin doonaysa waa maxay gabadha keensatay gabadhana maanta leeyin dadku dhan baa wali hadal haya aniga xitaa xagee leeyahay laba jacaylkii leeysiin xagee leeyahay laba xitaa hooyadana weli heshiisa maqlay ma ogoli أنا أدي بلي وقت جاني مركي هذا كجلان واي أودي مدام جعلاتي وعادي ومتكلنا وهدان قف جعلات معني هذا وحين قد حيجي وحاجة ناس هذا القادم والقاس يعني مفاتي وها إن الله صاد القادم حاسمين كرام تكلم ماكو شيء وحكي لي تسمين أوكي go-aan baan gaar waa inaan ka fogaata ayaan haddii kale hooyada ayaan u sheegaya waxaad qarisay dhowr sano ka hor inaa shil gashay haddii kale waa sheegaya amba wayna ayaan ka fogaata malaha imikana go-aanka ka fikirba 2 daqiiqan ku siin malaha imikada maaba u sheega haddaan rabo ma fahantay ayaana kama tegi karsi waan ogahay laakiin waxaan sameynayo indhahaaga shanta ayaad ku arki doontaa ما دعس هو يدي أوقات سيبين نقن ويمرقون ويلكيدو شلقل oh my god كليجي بي حسيتها إمك وين نشيء أيها wixii dhacay inta qof kale ka maqli lahaa iyagoo aniga maqlaaya dhaw marka hawsha ka yimid shaqada waa inaan u sheega waa inaan nafis geliya oo sheega hadii kale way iga xumaanayaan marka xaaskeyga aadka u qurux badan nolosheeda been inaan ku dhiso ma rabo waa inaan sheega hay qalbi hooyana ka war hay adiguna naftaada ilaali hada shaqadan tagay waan ku salaamay naftaadana ilaali way hay gacali iga daana ana ilaalini okay يا سوقي أنت هذا يا بالحوجة على بيا مقن قذنا وكم كرين كده وين بالسوق وبحر على بيا سوق كتاب حتى وحيرو إسكر قرفة ناس سوقنا هي قرح لي ذا حقي هذا سبنان كاد هذا سامية محسوق كذا ننسى وادي من الصبح هروب بحياة حقي هذا ما على بيرو قذنا أنكو كريو يوحيا بيرير يا سوق كذا نيا هذا هروب بانو صار من دونا
ayaan kaale fadlan kaale gabarayna kula hadlayn rabaaye waxa tahay ma ayaan magaciisii xaaskiisa waxaan ku sheegay ayaan rabay midda kalena haddaan min jun jeceshiid waa inaan noloshiisa aad ka fogaato gebi ahaanba waay sabab maxaa ugu tiri insha Allah khayr maxaa ku tiri saas ma ii sheegi kartaa midda kale inta xagga isku joogsatay dhageyso horta nacam xaqiiqada dhabtiisa iyo qofka la socodsiin ma ogtid waa iskala sheekaysataa backgroundkiisa xitaa ma ogid walaa qof naxariis badan ayaa tahay laakiin waxyaabo ka qarnay ah jirta markaas iska taxadir baan ku leeyahay maxay ka hadlaysaa qoftani ahayd oo wuxuu ka qarnayna maxay ahayd waa inay xaaskayga afkayga ka maqasha intayna naaf kale ka maqal waa inaan u sheegaa laga yaabaa inaan nafiso waxaan gudahay ku hayo ciil bay ku qabtaa ayaanay xoogaa waxyaabo muhiim ah ayaan ku sheegi rabaa oo wax nagu saabsanaaniyo adiga iyo familkayga kaaradaba uma adiga ugu handadaysay hooyadaa baan u sheegaya xaaskaaga qoftu waa mas caadiya midda kalena waxaan aad ayay yarta hooyadaa bas waa ka qarinaysay inay walwalin laakiin se ma adiga caawinaysaa saan hooyaday u sheego sababta ah hooyaday haddaan u sheego si degdeg ah si raaxa laguma sheegi karayo adaa si degan u hadla yaqaani ee hooyaday iga fahansii oo iga caawi taas way fududahana hooyadaa u sheeg mastalna maxay ahayd waxay hooyadaa u sheegtaba hooyaday hooyadaa inaa fahansiin waayahay aad iyo aad baa mahadsantahay inaa adi wax walba kuu sheeg kumaan khasaarin ee iga caawi biliis midda kalena aad iyo aad baa mahadsantahay haddaad iska kii cafisay mar labaadna iyo mar dambe been kuma sheegi doono noloshayna farxad ayaan ku dhammaysan doonaa yaa may tirahdeen gabadhii aan soo dhaweystay xitaa iyadiyo familkeeda wiilkaygii bay ka cabsi gelin soo kaleeda sirtaanaa sheegay anaa garan taasi habar yar waa adiga dhaheedee ma waxaan ku qabsan miyaad rabsaa maxaan ku sameynaa waxba ay qabin adoo ninkayga soo kuma daran hooyadaa baan u sheegay imka xaqiiqada dhan waa ogaaday anaa rabin ninkayga inaan kuu dhiso oo ku soo dhaweystay ma ninkayga ayaad ku handadaysaa weli waxaad iga qarisay noocaaga oo kale anaa waalana ku soo dhaweystay mar labaadna gurigayga ha iman mar dambena waxba iskuma naxay guriga igaga bax leebla akhlaaqad baa tahay oo si kale naarad iga baxanaha la hadalkaaga xitaa naqaskaba imka igu dhegdhegay waa inaad iga baxdaa nolosheeda wiilkaygiiba adaaba gubi qof fiican baan ku mooday ilaa hantidiisana waad rabtay gadaal ayaan ku ogaadaybe orad baxaq cagahaganay maqashay iga bax orado weliba ay hor taagan tahay weli waxaan xanjada maxayn naarad iga bax ora dhaqaaji haye habo balraalahow nacastan iyo mustanan guriga soo gashtay maxayn fariidaydi ayaanay waxaan ku leeyahay iga raalnaha walaa aad iyo aad anoo si fiican ku baran ayaan ku xukmiyey waxaa mooday wiilkaygayna hantidiisa bas u socotiin maa moodayna jecelniga tahay midda kalena jecelkiina aad buu u weyn yahay xitaa hadalkayga xitaa intaad maqli weydeen isjeclaateen midda kalena waa gabadhaas iyo waxaayoo dhan iga raali ahaada waan ogahay maxay wiilkaaga ayaad baqaysay midda kale hooyaa tahay hooyo wiilkeeda oo baqaysa ayaa tahay midda kalena dhan ma lahan hadda buuggii hore intaa xirno buug kale cusub ayaan bilaabi karna waayahay waa mahadsantahay haddaad iscafisay nolosheena dib hore ayaan wadanaynaa dibna uma dhici doono waxyaabihii hore iyo isfahankii waan kala saxnay saas ayaa loo baahan yahay waa inaa saas ka heshiisiin waayahay hadda hurdaya haysa waan sii seexanaya habeen wanaagsan sug anuu waan ku raaci rabaa xaaskayga sooma tihid waan ku raacaya may hooyada la fadhiya walbaa fadhida horta may waan ku raacaya mari maya horta cuntada dhamme andoomiga dhamme ma waxaa doonaysa inaa cuntada dul tagtid maya ayayna mari horta anaa garan meeshaan ku cunaye oh my god albaabka ayaa la garaacaya iska daa inagu gudaha sii gala anaa soo eegaya qofka albaabka gargaraacaya inagu waqtigiina qaata waayahay hooyo mahadsanid yaa waaya albaabka waxa garaacaya cidna waa uma wajeeday ma anaga nagu ciyaari rabo masuu ciyaalka xaafadda waa maxay noloshana oo waraaqadan ayaa dhigay meesha bal sugaa maana eega bal yaa noo dhigay waraaqad waxaan yara dhulka taalana maxay ahayd yaa noo dhigay dhulka waa la yaab xagee ka timday ma qofay wadada kaga dhacdaan u malaya bal hay haddaba aan furmalaana igu saabsan tahay waa inaa fiiriyaa
حركة دنبل haddii uu ogaado Minjun aabihiis dhabta iyo cidii dhashay dhabta ah laga yaabaa inay noloshiisu isku bedesho sidii xumaay abid maya hadda ma xilligu runta ogaa lahaa wiilkaygiisa maxay ku dhacday